السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وقعي عبد الله محمود. عشر كان عشركي شناد كويك بوكا. waxaan maanta qaadanaynaa casharkeena ku qaadan doonaa insha allahu tacaala si aynu sidii aynu alaab usoo iibsanahayn oo kambaniga waxa weeye alaabtu markasta oo aad alaab sii iibiso kambaniga alaabtii waa sii yaraanaysaa waxa lagama maarmaana in aad alaab cusub soo iibiso. marka goortii alaab la iibinayo laba qaab baa loo iibinayaa. mar waxa weeye inaad lacagtaada ku soo iibiso, lacagtii cash-ka ahayd oo kambaniga ugu taalay lagu soo iibiyo. marna waxa weeye in deyn ahaan lagu soo qaato oo goortii alaabtii la bixiyo alaabtii la iibiyo ama waaye waqti badan kadib in dib loo celiyo lacagtii. Okay, marka hore aynu bal horta tagno intaanay bilaabin balance sheet-keena tagno. balance sheet-keena maanta waa san wallet-kii waxa inoo ku jira $4,000 baa inoo ku jira. lacagta aynu macaamiisha ku leenahay waa 750. inventory asset-ka shirkadda alaabta taala waa 5,400 ay ku shaqeynayso. sidoo kaleeto lacagta lagu leeyahay shirkadda waa $450 baa lagu leeyahay waa account payable. dadkii maal gashtay oo shirkadda iska lahaana waa kuwan Cabdisamed Axmed Ali. marka shirkaddeena waa asaas. marka waxaan rabnaa inaynu soo iibino alaab inagoo isticmaalayna lacagta cash-ka oo khasnadeena inoo ku jira, wallet-keena inoo ku jira. Okay, marka ugu horeysa waxaad sameynaysaa banking baad tegaysaa, waxaad dhahaysaa write a check. Okay, lacagtii waxay ka bixaysaa waa kan bank account wallet-kii ka bixaysaa oo lacagtii ugu jirana 4,000 tahay. Okay, yaa la sii alaabta ka iibinaysaa. waxaan dhahaynaa waxaan ka iibinaynaa oo kaleeto barwaaqo group baan dhahaynaa. barwaaqo group baan ka iibinaynaa. Okay, ma aqaano yiri quick booki. Okay, haddayn baraynaa waxaan dhahaynaa waa vendor oo ah qoladii suppliers-ka oo aan alaabta ka soo qaadanayna. Okay, waxaan dhahaynaa waa item way waxaan ka soo qaadanayno, alaab baan ka soo qaadanayna. Okay, maxaa ka soo qaadanaysaa? waxaan ka soo qaadanaynaa oo kale inagu waxaynu gadaynay waxay ahayd pasta iyo bariis, waa cuntadii asaasiga ahayd. Okay, waxaan dhahaynaa kalluun baynu ka soo qaadanaynaa, daasadii kalluunka. Okay, waxaan ka soo qaadanaynaa yes baan dhahaynaa product-iga ku dar waa inventory part-iga cost-iga laga siinayo ala xabad ala kartoon anu jumlan gadaa ala kartoon xabad laga siinayo waa 5 iyo waxa weeye waa $10. aniguna waxaan sii siinayaa $15. saliska lacagtu income-ku salisku igu soo dhacaya. Okay, intee marka soo gadatay waxaan soo gatay 300 xabo. Okay, halkaas waxaan ka dhigayaa 100 xabo aan soo gatay aan dhahayaa 100 kartoon. kartoon. Okay, waan dhahayaa kalluunka aan soo gatay cost-igu waa $10. amount-iga quantity-ga marka intee weeye waa 100 xabo. Okay, 100 xabo waxa laga siinayaa $1,000. waxa la rabaa lacagta 4,000 ay ahayd inay waxa weeye 3,000 noqoto, inventory-giina uu noqdo ilaa 6,000 iyo waxa sifan kala ismaaciili. yes baan idhi. Okay, wallet-kii lacagtii waa ka baxay $3,000 baa ku hadhay. inventory-ga alaabtii shirkadda ku shaqeynaysana waxa weeye 7,400 buu noqday. marka xagga hoose liability-gii ku tigay waxa iska ma bedelin, kaliya waxa weeye inventory-gii baa siyaaday, lacagta cash-ka ahaydna waa naaqustay. Okay, qaabkii labaad aynu misana baranaynay waxa weeye qaabkii aynu deyn ahaan ugu soo gadan lahayn, alaab ugu soo gadan lahayn. Okay, yana waxaan tegaynaa vendor baan tegaynaa. waxaan dhahaynaa receive item and enter a bill ku dhufanaynaa. Okay, vendor-ku kee weeye waxaan dhahaynaa oo kale Hormuud baan ka qaadanaynaa alaab deyn ahaan uga qaadanaynaa. Okay, alaabtan ka qaadanayna muxuu yahay? waxaan ka qaadanaynaa dhahaynaa bariis baan ka qaadanaynaa. bariiskii waxaanu ka qaadanaynaa
150 xabo 150 kiish baan ka qaadanayna qiimihiisu yahay 1800. okay haddana balance sheetkeeni waxa iska bedeli doona waxa weeye inventory-gii alaabtii company ku shaqeynayay baa siyaadaysa sidoo kale deyntii layna ku lahaa account payable-kii isna waa siyaadaya. okay waa kan inventory-geena uu siyaaday 9200 buu noqday sidoo kale account payable-keeni uu siyaaday isna $2250 baa layna ku leeyahay. marka maanta casharkeena intaasaan ku joojinaynaa. haddii aadan fahmin waxaan jeclaan lahaa inaad ku soo celiso si aad si fiican ugu fahantaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.